Somaliland oo heshay diyaaradda F-35 hawada Hargeysa oo weli la circiiraysa diyaaradda Israa'iil ay leedahay iyo Cabdiraxmaan Cirro oo goordhow la ogaaday halka uu ku sugan yahay. Haddaba maxaa dhowrkii saac ee la soo dhaafay ka dhacay gudaha iyo hawada sare ee magaalada Hargeysa? Ma dhabaase wararka sheegaya in Israa'iil iyo Mareykanku ay ku wareejiyeen Somaliland diyaaradda halisa? Faahfaahinta wararkii ugu dambeeyay amuurta ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa. waxaa kaloo ku soo gudbin doona ciidamo taabacsan madaxweyne ku-xigeenka maamulka waqooyi bari Abwaan Cabdirashiid Jibriil oo ka soo ambabaxay magaalada Ceergaabo kuna soo wajahan magaalada Laascaanood. khilaafka u dhaxeeya Firdhiye iyo ku-xigeenkiisa ayaa gaaray halkii ugu sareysay. dhinacyaduna waxaa laga cabsi qabaa inay isfara saaraan. faahfaahinta ayaan kula wadaagi doonaa. qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona xildhibaan Fahimo Quuje oo si cad ula safatay Abwaan Cabdirashiid Jibriil eedeemo waaweyn u jeedisay Cabdiqaadir Firdhiye oo beel ahaan jaamacsiyaad ka soo wada jeedaan. qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan idiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada. haddii taa markii kugu horeysayna ku soo biri Daraja Media waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daawacno. aragtidaada qaybta commentiga ee noogu reeb muuqaalka aad daawanaysidna like saar. dhowr iyo 20kii saac ee la soo dhaafay hawada sare ee magaalada Hargeysa waxaa siyaabo kala duwan loogu arkay diyaarado joog hoos ku socda oo guuxooda ka dheereeya kuwaas oo shacabka Hargeysana sawirro iyo muuqaalo ay ka duubeen. goor dambana waxaa la ogaaday in Mareykanka iyo Israa'iil ay diyaarado u soo direen hawada Somaliland si ay dusha uga ilaaliyaan Cabdiraxmaan Cirro iyo xubnaha golaha wasiirada sida ay wararku tilmaamayaan. warbaahinta gudaha Somaliland ayaa waxay tabiyeen in diyaaradda la yiraahdo F-35 oo Mareykanku uu leeyahay waliba jiilka saddexaad ah lagu arkay hawada sare ee Hargeysa, taasoo walaac iyo walbahaar ku abuurtay Djibouti iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. shalay waxaan idinla wadaagay in laba diyaaradood oo Turkidu ay leeyihiin ay galeen hawada sare ee magaalada Hargeysa, taasna ay keentay in diyaaradaha Mareykanka iyo Israa'iil ay iyana hawada soo galaan. hadda meesha la isku dhex bursanayo oo dagaalka uu ka dhici karo waa hawada sare ee magaalada Hargeysa. Israa'iil iyo Mareykanku waxay sheegeen in ay barbar taagan yihiin jamhuuriyaddan ay goordhow aqoonsadeen ee Somaliland la yiraahdo oo ka go'day Soomaaliya lixmeedayadii. wararka iyo macluumaadka la helaya waxay tilmaamayaan in Cabdiraxmaan Cirro uu dusha ka daawanayay isaga oo kala socday aaladda fogaan aragga ana ka qayb galayay sidii uu u daawan lahaa dhoolatuska hawada sare ee Hargeysa laga sameeyo. tani waxay ka dhigan tahay ballanqaadkii wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ee ahaa in ay difaaci doonaan Somaliland haddii weerar uga yimaado dhinac walba. toddobaadkii la soo dhaafay sidoo kale daawadayaal waxaan idinla wadaagay in Turkidu ay saldhig ciidan ka samaysanayaan taliska Gooja Cadde oo ah saldhig weyn oo ay markaasi leeyihiin ciidanka maamulka Somaliland hayeeshe halkaasi laga saaray. hadda dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in diyaaradaha soo galay hawada Somaliland ay xakameyn waayeen maadaama diyaarad ka dhuuman karta raadeerada iyo sidoo kale adeega duulista hawada Soomaaliya ay hawada soo gashay markii dambana si xaraga leh hawada Somaliland ay uga baxday. tan oo dharbaaxa culus ku ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. khubarada arrimahan la socota waxay leeyihiin dawladda Soomaaliya iska daaya xataa Turkidu kama hortagi karaan diyaaradahan, waana nooca jiilka ugu khatarsanaa ee taariikhda soo mara oo waliba Mareykanka iyo reer galbeedku ay si weyn reer galbeedka iyo Turkidu ay si weyn u doondoonayeen. Erdogan ayaa 3 jeer oo kamid ah si uu diyaaradda F-35 u helo wuxuu u tagay aqalka cad laakiin waa laga diiday sababtoo ah Israa'iil ayaan raali ka ahayn. wasiirka duulista hawada Somaliland oo goordhow warbaahinta la hadlay isagoo oo dhoola cadeynaya ayaa wuxuu sheegay in Somaliland ay amni tahay. calaashaan wuxuu sheegay in hawada iyo sidoo kale meel walba ay amni ka tahay oo ciddii isku dayda in ay daandaansi halkaasi ka samayso taariikh marle arag ah loo dhigi doono. wasiirku wuxuu sidoo kale sheegay in haysan jirin wax war ah oo ku saabsan ama warka ay beeninayaan ku saabsan in Cabdiraxmaan Cirro uu ka maqan yahay deegaanada Somaliland. wuxuu sheegay Cabdiraxmaan Cirro inuu xilligan ku sugan yahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland balse uu ku sugnayn dhulka Israa'iil. wasiirku sidoo kale wuxuu sheegay in jahwareerintii ugu sareysay ay ku rideen cid walba oo carqalad u aragta midnimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda Somaliland. wasiirku oo ay saaxiibo dhow yihiin Cabdiraxmaan Cirro ayaa sidoo kale wuxuu ballan qaaday inay tallaabo adag ka qaadi doonaan cid walba oo lagu helo in ay carqaladeynayso nabadda iyo xasiloonida ka jirta Somaliland. waxaanu qaadaynaa tallaabooyin dheeraad ah
oo aan kula dagaalamayno cid walba oo aan u aragno in ay caqabad ku yihiin nolosheenna ama inay caqabad ku tahay nolosheenna waxaanu ka qaadi doonaa tallaabooyin dheeraad ah ayuu yidhi wasiirka oo warbaahinta la hadlayey. markana qodobadeena kale, khilaafka u dhexeeya madaxweyne Firdhiye iyo ku-xigeenkiisa ayaa gaaray halkii ugu sarreysay. xubno uu ka mid yahay taliyaha ciidanka biliiska Soomaaliya Asad Diyaano iyo sidoo kale Xasan Shire Abgaal wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland ayaa ku baxay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka labada dhinac. hadda bay ka soo laabteen xafladii caleemasaarka labada oday, laakiin tuhunka ugu weyn wuxuu soo baxay markii hadal jeedinta la siin waayey waa markaasi xafladii caleemasaarka ee Abwaan Cabdirashiid Jibriil, taasi ay dad badan u arkeen inuu khilaaf jiro. gabadha la yiraahdo Fahiimo Quujo oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka Waqooyi Bari ayaa laba qoraal oo kala duwan waxa ay ku soo qortay mareegta Facebook ay ku leedahay. qoraalka koowaad waxay ku tiri faamil Firdhiye Laascaanood, halka qoraalka kalena ay soo saartay sawirka madaxweyne ku-xigeenka Waqooyi Bari kadibna ay ku soo qortay madaxweyne, taas oo dabcan ka dhigan haddii uu Firdhiye iswaalwaalo in ay mooshin ka keeni doonaan xilkana ay ka xayuubin doonaan. dad badan oo arrimahan la socda waxay leeyihiin khilaafkan uma wanaagsana beelaha wax wada dhistay ee dhulbahanta iyo warsangeli. Firdhiye waa inuu tanaasul badan sameeyaa maadaama beesha hadda warsangeli ee la dhisatay maamulka Waqooyi Bari tabashooyin badan ay qabaan loona baahan yahay ayaa la leeyahay in xal degdega arrintaasi laga gaaro. sidaas lamid ah arrimahaas kale ee soo baxaya waxay tilmaamayaan in Abwaan Cabdirashiid Jibriil laga cabsi qaba inuu Laascaano iskaga baxo oo uu aado Ceergaabo, halka warar kale ee soo baxaya ay tilmaamayaan in ciidamo beesha warsangeli ah oo ka soo ambabaxay magaalada Ceergaabo ay ku soo wajahan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kuwaas oo dabcan difaaci doona madaxweyne ku-xigeenka Waqooyi Bari. Cabdirashiid Jibriil kaliya ma aha nin madaxweyne ku-xigeena, waa nin awood weyn ku dhexleh beeshiisa warsangeli. sidaas lamida waa nin haysta ciidamo fara badan, sidaas lamida waa nin ay xaajadu ka go'do marka la joogo tolkiisa, waa nin waxgooya waxna gala sida ay dad badan aaminsan yihiin. ninkan dad badan waxay aaminsan yihiin khilaafaadka jira in si hoose loo xaliyo oo aan ninkan la sii deynin, maadaama beesha warsangeli haddii ay ka baxdo maamulka Waqooyi Bari ay aadi karto Ceergaabo ayna difaaci karto, kadibna xaaladdu ay noqon doonto hal bacaad lagu lisay. si walbaba ha ahaatee Fahiimo Quujo iyo xildhibaanada beesha Jaamac Siyaad ee Firdhiye isku dheriga ahaayeen inay difaacaan madaxweyne ku-xigeenka dabcan waxay ku tusinaysaa sida Cabdiqaadir Firdhiye looga nacay deegaanada Waqooyi Bari oo xilligana loo baahan yahay in wax badan la xeeriyo si looga hortago ficilada foosha xun ee Cabdiqaadir Firdhiye uu ku kacayo. dadka arrimaha la socda sidoo kale waxay leeyihiin Cabdiqaadir Firdhiye isaga ayaa wax xeerin waayey isla markaana sameyn waayey wax walba oo ku aadan sidii xal looga gaari lahaa qodobada la isku hayo, waxaana wararka iyo macluumaadka la helayahay ay tilmaamayaan in ay u badan tahay in ay xaaladdu faraha ka baxdo haddii aan xal degdeg ah la helin. wararka iyo macluumaadka kale ee soo baxaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in dhowrkii saac la soo dhaafay sidaas oo kale ay jirtay warbixino la xiriira in beesha warsangeli ee degta gobolka Sanaag ay iyagu laftirkooda ay qaadi doonaan dhowr tallaabo oo loo malaynayo markaasi inay xaaladda uga sii darayaan. beesha warsangeli iyagu waxay sheegeen inaysan waxna xeerin doonin oo ay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah haddii xal laga gaari waayo qodobada la isku hayo. si walbaba ha ahaatee haddii ciidanka taabacsan madaxweyne ku-xigeenka Waqooyi Bari ay dabcan ka soo baxaan Ceergaabo oo ay yimaadaan magaalada Laascaano, dabcan waxaa markaasi ay u badan tahay inay isku dhacaan beesha warsangeli iyo sidoo kale beesha dhulbahanta ciidamada kala taabacsan, taasi oo ay dad badan aaminsan yihiin inaysan waxna u goyn karin, xaaladana ay dab kale ku sii shidi karaan. walow loo baahan yahay ayaa la leeyahay in xal degdega laga gaaro qodobada la isku hayo oo ay dad badan aaminsan yihiin in si degdeg ah loo xallin karo haddii caqliyadda laga shaqaysiiyo. laakiin Cabdiqaadir Firdhiye ayaa la soo warinayaa inuusan xilligan diyaar u ahayn xalinta waxyaabaha la isku hayo, isagoo taa beddelkeedu arka in xil murorsi uusan ku jirin isaga, laakiin ay jiraan shakhsiyaad kale oo Abwaan Cabdirashiid dabada ka soo riixaya, kuwaas oo la rabo ayaa la leeyahay in ay burburiyaan dhismaha maamulkan curdunka ah.
gudaana saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin haday tahay markii kugu horeysayna nagu soo biro subscribe channelkan waxaad helaysaa wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacanayo soo dhawaada saaxiibayaal